nabadiyo nolol alla madaxda nabadiyo nolol abalkay naga muten bulshooy magudi kareen ducaanu marinaynaa maamuus horseedii gole wasiiro mudaniyo xukuumad milgaladhiso ra'iisul wasaare khayro dadku mahadsan ku qire khayre masanadhiso dadku mahadsan ku qire kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkani waa channelka nabad iyo nolol kusoo dhawaada saaxiibayaal qodobada aan idin hayno waxaa kamid noqonaya رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية حسن علي خيره وشير قدوميي شركة قدية قرن كهرتقع عابق كورونا فيروس دولة فدرالك الصومالية oo daawo qalab caafimaad gaarsiisay magaalada Kismaayo xilli wadanku wajahayo xaalad daran oo COVID-19 ahi dowladda federaalka Soomaaliya oo gurmad degdeg ah u diraysa magaalada Bacadweyn ee gobolka Mudug maamulka gobolka Banaadir iyo gaadiidka magaalada Muqdisho oo isku raacay iskaashiga ka hortagga coronavirus qodobadaasi ayaan idin soo gudbinayaa saaxiibayaal taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 3 bisha May 2020 u diyaar garooba saaxiibayaal faynta qodobadii aad maqasheen oo dhameystiran رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية حسن علي خيره waxa uu shir gudoomiyay shirka guddiga qaran ee ka hortagga COVID-19 رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية حسن علي خيره waxa uu gudoomiyay shirka guddiga qaran ee ka hortagga coronavirus kaasi oo habeen walba la qabto kulankan ayaa waxaa looga hadlay dadaalada loogu jiro ka hortagga COVID-19 iyo gurmadka deegaanada ay saameeyeen roobka iyo fatahaadaha wabiyada dalka kuwaasi oo saameyn baan ku haya degmooyin deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka Soomaaliya رئيس وزراء حسن علي خيره ayaa xubnaha guddigan oo u badan golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ku amray in la iska kaashado qaabkiis looga wada shaqeyn lahaa ka hortagga COVID-19 iyo qaabkii loo xakameyn lahaa fatahaadaha ay sameeyaan wabiyada dalka iyo roobabka daaya gudaha dalka Soomaaliya xilligan waxay wajahaysaa xaalad adag oo ka dhashay cudurka coronavirus oo Soomaaliya kiisas badan laga helay iyo fatahaadaha ka dhashay wabiyada dalka roobka ka daaya magaalooyinka iyo qatarta ka iman karta cudurrada ka dhalan kara fatahaadaha ay sameeyaan wabiyada dalka iyo roobka xoogan oo ka daaya gudaha dalka Soomaaliya wabiyada dalka ayaa waxay iminkan bilaabeen fatahaado xoogan waxaana degmooyin badan oo ka tirsan gobolada dalka ku fatahay wabiyada Jubba iyo Shabeelle halka magaalada Qardha ee gobolka Bari xaalkeedu uu yahay alowsahal dowladda federaalka Soomaaliya waxay wadaa qaabkii loogu gurman lahaa dadka ay waxyeelada xoogan u geysteen fatahaadaha ay sameeyaan wabiyada dalka iyo roobabka daaya gudaha dalka Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya waxay daawo iyo qalab caafimaad gaarsiisay magaalada Kismaayo xilli dalku wajahayo xaalad adag oo COVID-19 ahi wafdi ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo sidoo daawooyin iyo qalab kale oo loogu talagalay ka hortagga caabuqa coronavirus ayaa waxay gaareen magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar ah dowlad goboleedka Jubbaland wafdigan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo kusoo dhaweeyay qaar kamid ah maamulka dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa caafimaadka waxaana qayb ka ah xubnaha loogu talagalay inay soo diyaariyaan ama ay soo dejiyaan gurmadkan dowladda federaalka Soomaaliya ay geynayso magaalada Kismaayo maamul goboleedka Jubbaland ayaa noqonaya kii afraad ee deeqa caynkana ay gaarsiiso dowladda federaalka Soomaaliya kaasi oo lagu xakameynayo COVID-19 ka jira gudaha dalka Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay laba jibaaraysay qaabkii lagu hortagi lahaa coronavirus maadaama dalka Soomaaliya uu hadda marayo xaalad adag oo coronavirus ahi
dowladda federaalk Soomaaliya waxa ay gurmad degdeg ah u diraysaa magaalada Bacadweyn ee gobolka Mudug halkaasi oo ay ka jirto nolol aad u adag. wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalk Soomaaliya uu hogaamiyo Xamse Saciid Xamse ayaa ka warbixiyay gurmad degdeg ah oo dowladda federaalk Soomaaliya ay gaarsiinayso deegaanka Bacadweyn ee gobolka Mudug halkaasi oo daadad ay ku dhifteen kuwaas oo sababay xaalado adag oo dadka deegaanka ay dareemeen. wasiirka ayaa waxa uu tilmaamay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu faray guddiga gurmadka qaran ee fatahaadaha inay si degdeg ah uga howlgalaan sidii gurmad loo gaarsiin lahaa muwaadiniinta ku dhibaataysan Bacadweyn oo hoy iyo hantiba ku beelay fatahaado ama daad ku dhiftay magaaladaasi. wasiirka gargaarka maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalk Soomaaliya ayaa waxa uu ka tacsiyadeeyay dadka ku naf waayay fatahaadaasi oo ka dhacday Bacadweyn isaga oo muujiyay sida madaxda ama madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha guud ahaan golaha xukuumadda federaalk Soomaaliya ay uga muujiyeen ama ay walaac xoogan uga muujiyeen dhibtan soo gaartay. wasiir Xamse Saciid Xamse ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay u istaagaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka degdeg ah oo loo fidinayo deegaanada ay fatahaaduhu ku dhiftaan iyada oo la xoojinayo wacyigelinta iyo wax walba ee lagu hortagi karo dhibaatooyinkan xoogan oo dadku ay wajahayaan. deegaankan Bacadweyn dhaca gobolka Mudug ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka jirtay nolol aad u adag waxaana dadka halkaasi ku nool ay wajahayeen daadad xoogan oo ku dhiftay magaaladaasi Bacadweyn waxaana sidoo kale jiray in dowladda federaalk Soomaaliya ay gurmad degdeg ah u dirayso deegaanka Bacadweyn ee gobolka Mudug kaasi oo dadka halkaasi ku nool ay soo sheegayaan inay haysto xaalad adag oo ka dhalatay fatahaad halkaasi ku dhiftay. waxa ay soo tarayay maalmihii lasoo dhaafay qeeladhaan xoogan oo kasoo yaraysa gobolada dalka Soomaaliya taasi oo ku aadan dhibaatooyinka halkaasi ka jira. warkii aad kala socoteen saaxiibayaal nabad iyo nolol channel waa naga intaay nabadgelyo.